بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي وياي أحمد محمد ويش أهنا أفهينك للكوكارك مقام سمين قبل كبنادل UK وحعاوة هل كان يسوقي ميت أوفر ليا ضدك أولياء أمدوني مقام سمين قبل كبنادل وأيبو مركز الدحات أسبوع عن قديس يسوقي من هل كان سيدا إسكولام ميل ديجان أرمها مقام سمين قبل كبنادل وحعاوة هل كان يسوقي ميت أيضا أوفر ليا قدوميها كميل كارك مقام رئيسة قبل كبنادل عبد الكريم جامع جمعاله iyo gudoomiye ku xigeenka Murudi Golaf iyo bulshakale oo reer Banaadir aad u badan ayaa waxa caawa halkan loo fadhiyaa in la soo bandhigo dastuur ku meel gaar ah oo loo sameeyay maqaamka gobolka Banaadir runtii hawl dheer oo dadaal fara badan oo ay soo qabteen guddi fara badan oo uu hogaaminayo Cabdi Daahir Islaaw Qoryooley Dr. Qoryooley iyo raggaas ayaa maqaamkan soo diyaariyay dastuurkiisa ayaga ayaana hadda faahfaahin naga sii doona waxaana u dhiibayaa Dr. Qoryooley si uu noogu faahfaahiyo maqaamka dastuurka gobolka Banaadir ku soo dhawaad mas'al Qoryooley kaaga mahadnaqayaa sida uu soo dhaweysay waxaan si gaar u wada salaamayaa dhamaan guddiga halkan caawis ku timid sababta halkan caawis ku imaano waxa waaye waxa lagu soo daahfuraya ama lagu daahfuraya dastuurka maqaamka gobolka Banaadir taasoo halkaas ku soo bandhigayna caawa dastuurkan in badan ayuu soo socday caawa marka waxaan soo gaarsiinay meesha la dhahayo ama waxa la yiraahdo draft ama loo yaqaano qabi qoraad wuxuu sax noqonayaa markii la soo akhriyo haddii wax laga dhimaayo iyo haddii wax lagu daraayo markaas ayay noqonaysaa gobolka Banaadir waxa waaye in la dhiso waa shay sharci ah wuxuu ka mid yahay qodob ka mid ah dastuurka qodobka sagaalaad waxaa lagu xiray baarlamaanka ayaa lagu xiray oo la leeyahay waxaa doodka keenayo waxa waaye baarlamaanka dowladda federaalka laakiin waxaan rabaa marka hore kisoo yar taariikhda inaan dib u celiyo taariikhda waxaan rabaa inaan ka soo bilaabo 2012 sababta maqaamka gobolka Banaadir ee u yeelan waaye matalaad markii dastuurka la qorayay dastuurka dowladda federaalka oo laga soo baxay transitionalka laga soo baxay waxaa jirtay dastuurka markii la ansixinayay ama la qorayay waxaa la isku keenay 829 ergo ayaa la isku keenay markii la isku keenay ergadii waxay ansixiyeen dastuurkan ayay ansixiyeen dadka gobolka Banaadir ama dadkii xiligaas oo ka soo jeedeen waxaan dabcan isleeyahay qaladkii ay galeen wuxuu ka mid yahay in qodobka sagaalaad oo ah in lagu xiro baarlamaanka federaalka haddaa fiirisid waxaa jirta qodob ka mid ah qodobka 42 dastuurka federaalka wuxuu leeyahay maamul walba wuxuu isku dooranayaa dastuurkiisa ayuu isku dooranayaa ilaa inta laga ansixinayo dastuurkan dowladda federaalka ama la dhameystiri doono marka qaladkii oo xiligaas la galay ayaa wuxuu yahay in lagu xujeeyo ama lagu xiro gobolka Banaadir baarlamaanka hadda marka teamkan in badan ayay waxay soo wadeen dadaal badan ayay soo wadeen hadda marka waxa la soo gaaray gunaanadkii ayaa la soo gaaray gunaanadkaasi oo ah in gobolka Banaadir xuquuqdiisii oo ah in loo raadiyo
dowladnimada sida banaan waxay tahay heshiis bulsho waay dad isku imaaday oo ku heshiiyeen in dowlad ay samaystaan marka waxaa la rabaa qodobka 42 oo ah waajibaadka muwaadinka haddaa fiirisid qodobka 42 farqadiisii F waxay leedahay farqadiisii H igaraa lahaa oo ah noqo muwaadin canshuur bixiye then su'aal marka halkaas waxay ka imaanaysaa oo ah in dadka Soomaaliyeed ama gobolka Banaadir inay ka doodaan oo ah dadka gobolka Banaadir keli ma muwaadin ah inay canshuur bixiyaan oo canshuurta dalkooda ay bixiyaan mise waxa qasabay maamulada kale naftigooda inay bixiyaan contributionka canshuuraadka oo ah oo laga rabay si dowladnimada Soomaaliyeed ay taam u noqoto dowladda maanta joogto aniga waxaan la nahnay heshiis ayaa la nahnay inaan la shaqeyno inaan taageerno inaan difaacno واجب وحين نقطة دمانتنا أي نقطة أو Prime Minister Hamza إنتو سن Prime Minister لقرن وحو أمسنا federalism أيوه أمسنا مدحوين حسن الشيخ إنتو سن مدحوين مروال وحو أمسنا دستور أيوه أمسنا وحو نديار ويا هاي مقام كجوال كبنادر إنه كانوا قضاء facilitate إنه كانوا قضاء حب كلو ديساي إنه كانوا قضاء أما إنه يفوز يعني ما دام اللبضة مدحوينها برايم مينستر كأي هندات أو حاجة شرعية ما دستورك إلهيان أما آمسيين أما أنتم مدحوينها أوصل نقول مدحوينه وحو آمسنا وقت قبل كبنادر إن حقوق ضوضة أو إن مال مريض أو دكتور قبل كبنادر إن أيسنين مثلات أيسن دات 5 مليون أو كنول قبل كبنادر مثلات ما هيستان كاسيا ما كوحي كانتين دانيرادا بجاج ليلة إن مالول بلديلو عن حقوق ضوضة on Melasar. Kasia markuu ay keentay dad matala inay sameeyaan. Then waxa dhacday dad badan ayaa waxay u dhintaan siyaabo badan u dhintaan haddana dad matala ama xildhibaano oo dadkan u damqada haddana inaysan jirin. Marka waxyaabaha xilifayo dadka Soomaaliyeed ama dadka ku nool gobolka Banaadir in xaquuq ay yeeshaan waxa la waayay dad matala ama xildhibaano matala ayaa la waayay. Aw salaabta marka dastuurkan wuxuu raacayaa ama tilmaamaha oo ah qodobada 48aad dastuurka dowladda federaalka iyo 49aad iyo 120aad iyo 121 wuxuu raacayaa tilmaamaha ay qodobadan aan sheegay oo dastuurka dowladda federaalka ay u yahay oo dastuurkan kama hor imaanayo dastuurka weynaa oo dowladda dhexe ama federaalka kama hor imaanayo marka waxaan annaga dhammaanteeni aan isku wada raacsanay ama dadka gobolka Banaadir jooga oo ah in ay matalaad ay helaan in xaquuqdooda ay helaan in ay helaan hogaamiyaal sax ah oo u damqanayo oo ka hormarinayo dantooda iyo masaalixadooda oo dhigayo in dadka gobolka Banaadir xaquuqdooda ay helaan ayay noqonaysaa dan gudigan dadaalka dheer ay soo sameeyeen aad ay ugu mahadnaqayaan annaga iyo tiimka oo dastuurkan ila soo waday muddada dheer oo waxa halkaan ugu soo bandhigay inuu yahay qabiil qoraad wuxuu ansax noqonayaa markii akhriskiisa la akhriyo ilaa gudoomiyaasha waxay aadayaan gobolka xamar ayay aadayaan madaxda siyaasiyiinta kala duwan iyo dadka dhaqmada dhammaantood ayay la kulmayaan dastuurkan marka wuxuu noqonayaa ansax wuxuu noqonayaa markii isku raaco oo ah haddii wax laga bedelayo iyo haddii wax lagu darayo markaas wuxuu noqonayaa ansax oo just ayuu noqonayaa marka waxaan rabaa walaalayaal dadaalkan waxaa waaye dad badan ayaa waxay ka dhawaajiyeen in ay yihiin xaquuqda gobolka Banaadir ay u raadinayaan laakiin dadka laba group ayay kala baxayaan dad hore waxay ahaayeen oo raadi jireen xaquuqda gobolka Banaadir oo ah aan ka ahayn daacad ka ahayn balse waxay rabeen in ay ayada magac ka sameeyaan ama in ay ka helaan dana gaar ah ay yeeshtaan laakiin waxa dadkaasi hadafkooda ma dhaafsaneen halkaas laakiin waxaan ni xaqiijinaynaa dadka gobolka Banaadir ku nool iyo shacabweynaha kala Soomaaliyeed in dadka Soomaaliyeed ay wada dhisan doonaan gobolka Banaadir ku nool si simanna ay u wada qaybsan doonaan ee isku garab istaagi doonaan dadka 5 milyan aan muddada dheer 20 sano aysan helin xaquuq oo ah dan dastuurkan waxaa si toos loo geyn doonaa wasaaradda cadaaladda iyo wasiirka dastuurka dhammaantooda ayaa waxaa la tusi doonaa dastuurkan halka uu soo gaaray in dowladnimada maqaamka gobolka Banaadir ay waajib ay tahay waxaa jirta Prime Minister Hamza inuu yiri siyaasadda waxaan ugu dhawaanayaa ilaah ayaan ugu dhawaanayaa ayuu yiri laakiin waxaan ii sheegay gudiyadan oo maanta halkan fadhiyaan iyagana in dadka gobolka Banaadir ay helaan maqaam ay helaan matalaad ay helaan iyagana waxay ugu dhawaanayaan ilaah bay ugu dhawaanayaan waa arin oo waajib qof walba oo gobolka Banaadir waxay waajib ku yihiin wixii danta iyo masaalixda ku jirto oo ah in ay taageeraan ayaa waajib badan ayaa ka soo gaartay
xagga maamul la'aanta gobolka banaadir ha noqoto dadku dhinta ha noqoto shaqo la'aan ha noqoto waxbarashada dhalinyarada oo aan miisaaminayn iyo ammaan darro ku baahday oo aad ogtihiin hadda inay meelihii ugu nabad badnaa ama xaafadaha ugu nabad badnaa toorey iyo wax lamid oo ay gaarto si taa iyo dhibaatooyinkan looga baxo ayaa caawa guddiga halkan fadhiya oo gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha dastuurka gobolka maqaamu samaynta gobolka banaadir iyo xubnaha kale halkan fadhiya waxay u istaageen oo habeen iyo maalin u istaagnaayeen ka bixitaanka dhibaatooyinkaas iyo waxqabadka dadkooda iyo degaankooda gobolka banaadir haddana waxaan ku soo dhawaynayaa gudoomiye ku-xigeenka murudi golaf oo asaguna dhinacayga bidixda fadhiya ku soo dhaw gudoomiye ku-xigeen ma dhawaa wiish warka oo sheegto waaye marka arrintan maaragta caawa oo isku wadamaanay waa arrin aad iyo aad u fiican muddo dheer ayaa arrintan laga soo shaqaynayay maanta waxay taagan tahay gabagabadii in dastuurkii la diyaargareeyey draftigii la keenay oo hadda inaan dib ula noqonayno oo soo saxeyno haddii wax lagu daraa iyo wax laga bixinayo haddana mar labaad isku iman doono saanu ansixino marka waa baasantiin marka anigu hadalka badan ma hayo waxaan ku daran lahaa maaragta hawshaan waa socotaaye maaragta tareenkan waa socdaa inaan macnaa marna inaan hakanin oo waa sii dhiirigelina sii hore kale oo u dhacday iyaysan dhacin yaa la moraal jabin arrintan waxa waaye arrin aad iyo aad oo Soomaali oo dhan ayaa noo dhigtaagayso waxaan rajaynaynaa inay ku dhammaato guul iyo horumar bulsho weynta Soomaaliyeed oo ku nool caasimadda banaadir inaan soo hooyi doono guul iyo horumar si macnaa waxyaabo badan oo lagu wada hadlayay oo hadda la sheegay maanta arrimahan inaan howlgalno oo annaga oo dhan isku duubnaano oo hawshaan macnaa guntiga u xirano oo hawshaan hirgelino dastuurkana waa ujeednaa macnaa dastuur fiican oo hadda soo diyaargareey waaye haddii wax lagu daraay iyo wax laga dhimayn waa isla joognaa dhammaanteennaba waxaa waaye soo fiiriya haddii wax lagu daraay dhammaantiin macnaa haddii dhaysiin kana lagu daro kana laga jaro waa iska caadi waaye waa lagu daraya waa laga saaraya marka waxaan rajeynayaa hawshan waa bilaabatay Soomaali oo dhan sugayso marka ha noqonina kuwa maanta wax bilaabay haddana dhexda oo ku dhaafo waxaan rajeynayaa ilaahay waxaan ka baryaa macnaa horumarka hadda gaarnay oo maaragtay wiigaan keliya waa markii saddexaad aan shirayno macnaa hawshan waxay u baahan tahay dardargelin iyo moral oo high moral oo supporter u baahan tahay inaan moralka isku dhisno hawshan aan gabgabayno annaka oo dhan waxa waaye maaragtay hawshan waxa u maanay aan caruurteena iyo guryeena ugu soo tagnay inaan banaadir aan wax u dhisno oo dadka banaadir oo dulman oo maaragtay tuutuusag ilaa hadda waxaa leeyahay maaragtay dib ha loo jiido oo halkaas laga celsho oo halkaa laga celsho marba tallaabada la soo qaado oo dadka ay dadaa jiraan dadka moraal jibiyo oo dadkaasna waxaan leeyahay macnaa walaalayaalo dadka dadaalayo yaa la qalbi jibin waxa waaye meeshaan lacag kuma bixisiin contribution ama lacag nila weydiiyo marka fiiriya arrintan meeshay ku dambeyn doonta suga macnaa degdegina macnaa maxaa ka soo baxaya iyo wax noocaas adoo dhahan macnaa wax kastaba saa ogtiin dad yaraa bilaabo macnaa 2-3 bilaabo 5 ay gaaraan 7 ay gaaraan kabacdiina 10 12 ilaa waa soconaa kumanaan marka waxaan rabnaa inaan hawshaan aan ballaarino oo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo maaragtay caasimadda ku nool inaan qaybtooda ka siino oo maaragtay Soomaaliya oo dhan ku dhintay arrin maaragtay waxaan rabnaa oo loo wada dhan yahay inaan sameeyno oo qof walba macnaa la qanciyo waxaan rajeynaynaa inaan maaragtay hawshaan nala gargashaan gudaha iyo dibadda waxa joogo waxaan idin codsanayaa inaa hawshaan aad garab iyo hiil iyo hooba macnaa arrintan nagu siisaan marka aan hadal badan kuma dheeraanayo meesha waxaa loo imaaday draft oo dastuuriya taasaan u imaanay caawa shirkaan kaasoo qoseeya waa hadal badan dheerna ma noo furno draftii kaliya laga hadlayay marka draftigana qabdi qoraalka oo hadda oo taagan tahay marka arrintan marka waa soo bandhigi doonaa waan soo gudbi doonaa dhammaan qof walba oo Soomaaliyana insha Allah si wax u arki doonaa oo waadixa soo wax qarsooneen oo wax mugdi ku jirin qof walba wax qancinayo ilaahay idinkiisa waxaan ka baryaynaa inuu dadka dhan macnaa wax oo qanci karo inaan keeno dadka reer banaadir ee jooga Muqdisho ama adduunyada dacaladeeda waxaan u sheegayaa
caawa qadartiinnu waxay maraysaa dastuur waa qiyaasi kartaan mar haddii la soo gaaray dastuur howlaha iyo waxa la soo qabtay dastuurku ma ahan meesha wax ka bilowdaan laakiin ugu yaraan waxa weeyaan waa dhexda marka waxaad meeshaas ka dareemi kartaan in howl dheer la soo qabtay oo jidkii ugu yaraan lagu sameynay maamulka oo kala bar joogo adinkana waxaa idinku waajiba haddaad muqdisho joogtaan iyo haddaad meel kale joogtaanba inaad dib u xisaabtaan dhibaatooyinka aanu soo marnay ee gobolka banaadir 30 sannadood ee ugu dambeysay khaasatan 15kii ugu dambeysay oo sano oo dadku dhismayeen dekadaha furteen canshuuraadkooda wax ku maamusheen dakhligooda kala samaysteen wax walba xisaab ayagu ay leeyihiin iyo rabitaankooda ay isku waafajiyeen waxaad ogtihiin maanta cariiriga nololeed ee ka jira gobolka banaadir dhaqaalaha sicir bararkiisa oo maanta qofku og inaysan jirin guryo la'aanta oo dadkii guryihii isqaada la'yihiin xataa jidadkii iyo qabuurayaashii inaan marayno meel aan qabuuro ka dhigan inaan weyno gobollo kale oo dhulkeenniya in nalka galo sidaa aawadeed waxaan nalka wada rabaa inaan gacnahaas wada qabsanno guddigani waa guddi howlfulin qarash iyo waqti uu leeyahay ayuuna gelinayaa in hawshaani ay suurtagal noqoto waxa uu qabanayaa huna waa adinkana waxaa laynka rabaa darajo laynkama hortaagna laynkama qaadanayo laynkama boodayo waa la isku kinkeenayaa qof walbaa hubaa meesha uu rabo iyo meesha uu ka mudan yahay ayuu ka gelayaa waana wax dadka ka badan sidaa aawadeed waa inaan isgacan qabsanno anoon hadalka ku dheeraanayn dad badan oo mudanuna ay joogaan waxaan hadda ku soo dhawaynayaa doctor Cumar Maxamed Cabdi Fanax oo asaguna ah xubin xoog leh oo ka soo shaqaysay arrimahan ku soo dhawaaw Cumar Fanax horta waxa weeye meeshan isku nimid arrintan waxa weeye wax badan baa la soo waday taariikhihii horena aad ma mataqaanaa ula soconay banaadir waxa weeye wax badan baa la isku dayay in la dhiso maamul goboleedyadan oo dhisan oo dhan inteen la dhisin ka hor baa mataqaanaa damacsaneen inaan dhisno eelgaaw markuu gabagaba yahay iyo fashilmay hadda waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu markaan uu noqdo mid ka fashilmaayey waxaa umalaynaa maxaa la yidhahdaa dadka gobolka banaadir oo dhan meel kasta ay joogaan adduunka dacaladiisa iyo dadka xamar ku nool oo ku dhibaataysan iyo mootada ku shaqaysanaya oo xabadda iskaga dhacdo cidlada xisaabtamaysaan cid ka xisaabtamaysa ay jirin iyo kaloo qarax loo dhigaayo mataqaanaa cid ku xisaabtamayna ma jirin marka waxaa weeye heer waxaa la gaaray la yidhahdo war qaraxaan oo qaybiya admiina maalinba meelaha laga tuuro wixii oo dhan magaalada ku socdaan cashuurta isaga ka socotaa qarax asoo ku socdaa xabadda la dilay asoo ku socdaa marka waxaa weeye cid u hadlayso dhehaysa waxaan magaaladan uma qalantanaan ma jirto marka waxaa moodaa nin kastaba waxaa weeye sici hadduu oo lismayna waa maalaya hadduu gurano oo shuqulkii maahna ayay mataqaa arrintaa ilaa bulshadii meesha joogtay haddii la sameeyo marka hadhowda waxay noqonaysaa xaggee mataqaanaa la aadinayo mataqaanaa cashuurta xaggee laga helaya ilaa bulshadii cashuurta ka timaada bulshadii waa ina la dhaqaaleeyaa jididka hadda waxay noqdeen wawiyo maalin dhexdaas hadda xagaayiga markoo bilaaday iyadoo xilli badan iyo awaar badan iska jireen laamiyada doonaa lagu marayo marka baabuur oo biyihii ka shubo ma la wayna mataqaanaa meesha oogu shubo ile biyihii badda meesha ujo magaalooyin aan ku noolnahay badna uma dhow biyana uma roobka sida u dhow marka waxaa weeye magaalada dhaqaalaha unbaa laga xunaa maxaa la yidhaahdaa cid wax gelisana dib ugu celisa male marka maamulkan waxa ujeeddada ugu weyn mar kastana loo dayayo la iskugu dayayo lana fashilinayay marka waxaa weeye in dhaqaalahaas marka magaalada ka soo baxaya xooggeeda in asaga la geliyey waxbarashada la geliyey caafimaadka la geliyey jididka la geliyey farmeed waxaas oo dhan la geliyey marka ila meesha bulshada joogto ilaa cashuurta sababta ugu soo baxaysa bulsho badanaa joogto bulshada badneed wixii in wax lagu celiyo maadaama wax ka soo baxeen marka wixii hadda ka soo baxay cid wax ku celinayni marka waxaa weeye meesha waxay noqotay cid matasha male bulshada meesha deganeed intay doontaa la ekaata 5 milyan iyo 6 milyan waxay doontaa noqoto ama 4 ha noqoto marka bulshadii hadda waxaa weeye waa bulshadii waa gabagabo waaye waxaa weeye marka waa la iskugu imaanaya haddii ilaahay yidhaahdo ummadda dhan oo banaadir ku abtirsanta meel kasta adduunka ka joogta mataqaanaa magaalada muqdisho oo bulshada weynka ay joogto marka bulshadan waa loo geynayaa dastuurkaana markaa contribution wax bay ka yeelanayaan meesha ugu weyn waxaa weeye magaalada culumadeeda iyo odayaasheeda nabadoonadeeda iyo aqiladeeda marna ma ka hadlaa magaalada marka waa iska aamusan yihiin marka sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nima hadla hooyadiis wax ma siiso saasay tiraahdaa Soomaalidu marka intaas oo dhan waxay ahaayeen waxaan waa la sameynaa in qalad been ahayd in lagu xiro baarlamaanka wax ka gaaraya gobolada kalena ay ka dhistaan arrinta ugu qaladka ugu weyn oo gobolka laga galay intaan 20 sano oo dawladda la aaday saas bay ahayd wixii ina federal centralization la soo celiyay in federaalka la dhameystiro wax ka dhaxeeya waxaan ilaawi karin oo aan ayadana telefoonka ku wareejinayaa walaashay Nadiifa Qaran oo ayaduna aan habeen iyo maalin ka istaagin
danaha gobolka banaadir iyo maqaam samaynta gobolka banaadir kusoo dhawaad nadiif qaran aad iyo aad ayaan caaw ugu faraxsanahay haddii dastuurkii qabi qoraalka ahay ee maqaam samaynta gobolka banaadir oo caawa dhaktar qoryooley uu nala wadaagay si dastuurkii qabi qoraalka ahaa maqaam samaynta gobolka banaadir caaw uu hor yaallo waan ku faraxsanahay waxaana leenahay dhaktar qoryooley waa ku mahadsan tahay waxaan kaloo si gaar ugu mahad celinayaa walaalkay afhayeenkeenna afhayeenka maqaam samaynta gobolka banaadir ahaana afhayeenkii hore ee Hirshabeelle haddana ah afhayeenka maqaam samaynta gobolka banaadir walaalkeen Axmed Wiish oo mar walba u taagan maqaamka gobolka banaadir waxa asagana mudan walaalkeen Farax oo asagana ah raggii u soo halgamayay maqaam samaynta gobolka banaadir iyo gudoomiyaha kusimaha ah iyo gudoomiyaha ku-xigeenka walaalkay Cabdikariin Jimcaale gudoomiyaha kusimaha oo asagana ka seexan la sida maqaamkan mar leh uu hadee ummadii ka soo jeeday gobolka banaadir ama tiimka maqaam samaynta gobolka banaadir habeen iyo maalin dal iyo dibad isaga xiran in ay hor ugu socon lahaayeen sidii uu ka dhawaajiyay gudoomiye ku-xigeen walaalkeen safiir hore Murudi Golof marka caaw farxadeena lama soo koobi karo waa markii saddexaad oo isu imaanayno waa guddi ku meel gaaray ee matalaya maqaam samaynta gobolka banaadir caawana waxaan haysanaa dastuurkii maqaam samaynta gobolka banaadir walaalkii qoryooley uu ku mahadsan yahay oo wixii naga anfacayaan laga saari doono oo tiimka maqaam samaynta la dhex dhigi doono dal iyo dibad si ay markaas ayaguna ay u sii falanqeeyaan insha Allah marka waxaan aad ugu mahad celinayaa walaalkay daahir nuur cadde iyo waliba walaalkeen tijaabi nasiibkaaga wariyaasha caawnala jooga oo u mahad celinayno warka sii wadi maayo waa la soo dhamaystiraba marka aadaan kaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka mar walbaba maqaam samaynta gobolka banaadir dardaarmaya aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo odayaasha jooga gobolka banaadir ee gobolka banaadir ayagu oo ku abtirsado sida aad ogtihiin waqti fara badan oo aad gobolka banaadir aad joogteen intii ka dhacday may kaga sheekayn maayo in xuquuq la'aanta siyaasadeed iyo shaqo la'aan iyo wax walba oo la qaybsaday dadka gobolka banaadir jooga aan laga martigelinin oo si go'aanka waddanka ka lahayn ma moogdiin in wax kasta oo dawladda dhexa qabanayso la doonayo qof wax ka qaybsada oo dhinac fadhiya oo dawlad goboleeda kaana aanu haysanin gobolka banaadir haddaba iimaanka malaaqa aqoon-yahanada suldaamada waxgaradka kaliya aqoon-yahanada siyaasiyiintii hore kuwa hadda shaqaynaya mid walba waxaan ka codsanaynaa ayaga oo garbaha isku haysta inay u wada istaagaan fulinta arrintan aan caawa halkaan u fadhino oo ah maqaam samaynta gobolka banaadir xaqiiqdii waa nagu wada waajib waa nagu wada sunno waa nagu maaragtay hanti aanu wada leenahay oo ilmo aan dhalan oo loo rabo in qaybtooda waddankan looga qaado maadaama la kala qaybsaday in qaybtoodii annagu aan ka wakiil noqonno oo ayadoo cadaalada oo dhul waxay xaq u leeyihiin oo dhaqaalo waxay xaq u leeyihiin oo kursi la fadhiisa waxay xaq u leeyihiin wax walba xaqoodii sida rag kaleba ilmo kale xaqood ugu raadinayo annagana waajib bay nagu tahay inaad gadaal isku dhigtaan maahan inaad isku gambataan maahan way naga badan tahay intii 30,000 oo jago wax ka badanaa ku jira ciidanaa ku jira maamulaa ku jira xildhibaanaa ku jira wasiiraa ku jira ciidan marinaysaa ku jira kuwa cirka iyo hawada dhexdooda yaaca ku jira naga badan ninkii xil raba annagu xil maahan waxa aan nooca halkaan u fadhino laakiin waa maqaam samaynta gobolka banaadir oo naga dhaxeeya oo ilmaan dhalan wax ku leeyihiin oo wakiil ka nahay marka walaalayaal gacmaha isqabsada haddana anoon ku dheeraan waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka gudoomiyaha ku meelgaalka ee maqaam samaynta gobolka banaadir master Cabdikariin Jimcaale ku soo dhawow walaal caawa codkaaga ayaa dadku ku kaa dhammaan tiimka xiriirinta banaadir ma santiin dumaantii waxaan caawa aan arkayaa yani shaqo fiican oo inoo soo sameeyey walaalkeen tiimka maqaam samaynta hogaaminayo daahir cabdidaahir islaam oo ku magac dheer qoryooley runtii waa aqoon-yahan waa nin mutacalima waa nin wax bartay kalsooniyaan ku qabaa aniga run ahaantii yani dastuurka oo noo sameeyey walow oo qabiye yahay haddaan taan oo laysku raacay wax muqdisho wax u taraayo inuu future-ka noo noqdo in la soo aqriyo
akhriskaas markay dadka indhahooda wax fiican ku arkaan inay noo soo gudbiyaan wixii qaldanne dib ha loo celi in la yidhaahdo taasaa meel isla dhignay runtii waxaan raadinayaa wax shaqo yacni fiican wax qabad leh inaan annaga helnaa kadibna aan gacanteydii midig ku soo qaado dastuurka anigoo wadana magaalada muqdisho keeno odayaashii dhaqanka ee magaalada joogane inaan gacanta ka saaro ayaga naftirkooda dib ugu noqdaan akhriyaan wixii qaldanna laga saxo meeshaasna gobolka banaadir arrimihiisa lagu fuliyo run ahaantii tiimka xiriirinta waa yacni dad isku kalsoon oo maamul yacni inay u sameeyaan يعني قبل كبنادر جعل وادو جدين فرحة كم وقتو بدومي كحجانك فرحة كم وقتو أفيانك مستر فنح ونين يعني دولة بدل لسه شقية أو بنادر لو ودي فاشلنتي لكن تم وحولي إلي دول كده على مرهم هنا هانتينا وحواي مقالة مقدشة ودريميسي وأبهانتها intaas ayay yani dadka reer muqdisho raadinayeen canshuurta waa ka hadleen ani war ii maharin wixii aan sheegi lahay waaba la sheegaba oo raggan dhanaa wada sheegay runtii magaalada mid ugu yar oo aniga aan hadda isleen waa dhib badan tahay waa ciyaalkan weerada yani meeshaas haddii ciidan gobolka uu helo oo yani mishaari qaato yani waxaan ma jiri doonaan insha allah wax naga dhammaanaya ayay noqon doontaa run ahaantiina kalsooni badan ayaan tiimkan ku qabaa waxaana la heli doonaa madaxweyne gobolkaasi right person ruuxuu noqdabo yani nin u fiican inuu ilaahay noo sahlo yani ma ayami karna annaga waxaanu nahay bis inaan maamulkii wixii keenno yani qofkii madaxweyne yani meeshaas ka naqan lahayne oo ilaahay noo soo daahiriyane oo meesha ku matalo marka waa soo dhaweynayaa walaalkii cabdidaahir qoraalkiisa iyo tiimkiisa aad ayaan usoo dhawaynayaa waana ku faraxsanahay insha allah waana iga sugi doontiin anigoo wado dastuurkan iyo wixii yani qaabka aan u shaqayn lahayn annagoo iswadno waxaan kaloo rabaa inaan idin xasuusiyo idin sheego in aan rabno yani wida bil gudihiisa xaflad loo dhan yahay oo yani reer banaadir ay u wada dhan yihiin magaalada London inay ka dhici doonto wadan bil gudihiisa si aan annaga naftirkeena dadka u gaarsiino shaqadan aan wadno quruxdeeda yani ay inala fahmaan waa dareemayaa Soomaaliya wax badan qofkii wax sameynaya lugta laga qabanaa waa ognahay laakiin ma aha waxaa loo baahan yahay in garbaha la isqabsado la walaaloobo si aan horumar u gaarno magaalada waa dhibaataysantaa muqdisho horumar aan u raadinaynaa shaafi media oo ah yani nin u qaabilsan dhinaca miidiyaha tiimka xiriirinta ee banaadir ee maqaam u samaynta oo loo qaabilsan yahay walaalkeen waxaan kaloo caawa ku dhawaaqayaa guddoomiye ku-xigeenka tiimka xiriirinta ee banaadir walaasheen nadiifo qaran in ay tahay guddoomiye ku-xigeen labaad ee tiimka xiriirinta banaadir